gabadhi hadda laba jeer ayaa qalbiga laga jabiyey, laba jeerna way sinaysatay, laba jeerna waxa waaye way khasaartay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أد بان إدين سلام يا ملك السؤال جوكتان إيسي كستو آدي مقاليسان مانتو وحان إذا كغشا كيني قصة جعيل وآد يآد وحانون بضرونتي. قصة جعيل كواحد يكون عضي كبر عريش ليرا هذا يقول حمسة ليرا هذا رنانتي كوار لشي كذا هان هدان إذا كغشا كيو قاركين هورت شي كذا والله يابي دونتان قاركين واتكو قصلي دونتان وايهي عريش وقبر اللي يراه أكون ولدالك كندا muddo 5 sano ah ayay ku noolayd waxayna isbartay wiil yiraahdo magaciisa Xamse. Hadii barnaamijka la garay aan rag badan baan fashilayaa waaya qisadani waxa ku dhacday gabar Soomaaliyeed oo magaceeda la yiraahdo Cureeji oo nala wadaagtay si toos ah ila wadaagtay qisadan run ahaantii aad baan uga xumaaday waxayna tiri magacayga magacaas Cureeji aniga u bixiyay gabadhan waxay dalka Canada deganayd muddo 5 sano ah 5 sano ugu horeysay waxay ahayd gabar shaqaysata wax barata basically aad isu diyaarisa nolosheedana ka fogata ayadoo xaalku sidaas yahay ayaa waxay isbarteen magaciisa la yiraahdo Xamse. run ahaantii ayada iyo Xamse aad ayay isu soo dhaweeyeen. isbarashadoodii koowaad waxay isku afgarteen inay isku raacaan meel cafe ah oo break time ka soo iskoolka ay ku wada qaataan. Cureeji marka kasta gabar iyada waxay ahayd aad u akhlaaq badan laakiin khaladaad hore uu ka dhacay خلات وين نفتيدنا أيضا أيها قشي. حمسة وحها ويل قرحانة أو آد وشيكا بدن حدنا أف ميشارة كل كودي كوات أيها بكاشي آد أيها ودرينتي وحيت القفنا عالم يهجره أوكي حمسة مركا وحو جوغا أسا ودن كسنة دي مدة سنة دي برعا بجوغا عريجنا 5 سنة أيها ودن كندا دقت فأمر كيسا أودن حمسة وحا أي دقينيهين دالك أوغاندا صباح كاستمر اسكوغو إمادان اسكولكا waxay ahaayeen laba qof oo ayagu isfiirsada dareenku waa ka awood badan yahay way fiirsanaysaa asag laakiin dhanka Xamse wax dareen ah haba yaraatay ma jirin. qofta la yiraahdo Cureeji ayada dareen ayaaba markiiba abaaray sida xaalku saas u ahaa waxay go'aan ku gaareen in ay si ay waqti fiican isula qaataan in ay ku ballamaan restaurant ama maqaayad VIP ah maqaayad hebla address kala siiyay halkaas ayaa lagu ballamay in la sugo imaado 10 galabnimo qof walba waa soo labistay labiskiisa ugu dambeeyay. Cureeji oo khamkeeda wadata iyo Xamse oo asaguna ka daran. Cureeji laftigeedu waxay gabar aad u qurux badan aad u akhlaaq badan dheer iyo joog iyo jamaalna Ilaahay siiyay. Meeshii lagu ballamay ayaa waqtiga ayaa la gaaray qof walbana telefoonka ayuu dhigto ku hayaa waa soo dhawahay waa soo galay waa ay muuqataa iyo waa joogaa baa lagu wada hadal. Cureeji aad ayay u danaynaysay wayna ka soo hormaray waxayna tiri maqaayadii. Xamse ayaa irada ka soo galay oo asaguna khalkhalkiisa wata. Xamse maanta waa shidan tahay wuxuu ku yiri aniga isma jeedin miya meeshii ayaa lagu sheekaystay lagu kaftamay. Cureeji waxay go'aan ku gaartay in ayadu shaqada ku hormaro oo waxay ku tiri Xamse noloshaada in aniga wax ka ogaado ayaan rabaa. Xamse wuxuu ku yiri maxaad jeceshaa inaad ka ogaatid wax kasto aad rabtidna aniga ayaa diyaar kula ah soo dhawo ina weydii waxa aad jeceshaa. wuxuu ku yiri aanu sheekadeedu waa badweyn haddaan ku bilaabay adigu iiga hormaro bal adiga noloshaada iiga sheekay. waxay ku tiri Xamse aniga run ahaantii wax nolol ah malihi horay ayaan u soo khasaaray dhibaato badan ii soo gaartay laakiin waxaan rabaa wax allaale ii soo gaaray in qofka iga mayr lahaa aan helo. maxaa ka mid ah buu yiri wax ku soo gaaray maxaa ka qaldan. waxay ku tiri Xamse run ahaantii dib aad u weyn ayaa soo gaaray waxaana jeclaaday wiil dhalinyaro ah aniga oo jooga dalka Kenya ayaan waxa jeclaaday wiil dhalinyaro ah xilligaas oo aan ahaa dhalinyaro uu i khiyaamay si xun ayuuna yeelay mana rabo inaan sii wado sheekada. wuxuu ku yiri haddii aad sidan iga cabsanaysid oo aadan sheekada ii bayaanin hadda isma fahmi doono mana isfahmi karo. Xamse wuxuu go'aan ku gaaray inuu ogaado meesha wax ka jira. waxay ku tiri Xamse waan ku sheegayaa wax walba oo dhacay laakiin Ilaahay baan kugu dhaarshay inaad cidna u sheegin iga ballan qaad. Xamse waa sida uu rabay wuxuu yiri ballan baan ka qaadayaa qofna ma ogaanayo labadeennana ina dhaafimayo midda kale ani adigu laba qof dhalinyaro ah nahay asxaabnimo ku sheekaysana saaxiibtimo ayaan ku hadalnaa saaxiibka koowaad ayaan noqon doonaa sir kasta oo aad ii sheegatidna waxaan ku ballan qaadayaa in aanan ka sheegin ee ii sheeg sheekadana ii bilow waa ku lahay inaan ogaade.
gabar daacaday ahayd run ahaantii cureeji waxayna go-aan ku gaadhay in ay sheekadii iyo si wax u jiraan ay u sheegto. waxay ku tiri xamsow 6 sano ka hor waxaan isjeclaan wiilkaasna si xun ayaan mataqaanaa u jeclaaday waan is ilaaway run ahaantii gabar aad iyo aad u akhlaaq badan u dabeecad wanaagsan u damiir wanaagsan laakiin waxba igu dhacay taariikh aanan weligay kasoo kabanin ayaana igu dhacday. reerkayagu waxay iga aaminsan yihiin cureej inay gabar tahay laakiin run ahaantii gabar ma ahay. wallaahi aad baan uga xumahay laakiin wiilkaan jeclaaday wuu i khiyaamay jacayl xun ayuu igu beeray waana iga sinaystay. naxdin weynaa calal xumo badanaa racan weynaa. xamse kama waale wuxuu ku yidhi waayahay siday u dhacday wax kasoo dhacay waa dhacan hadda waa taariikh hore hawalwalin ha walaacin waxaana kaa ballan qaadaya inaan ku ilowsiiyo haye maxaa dhacay iyo sheekada. waxay ku tiri markii allaalihi markii aan sinaystay gabarnimadeedii waaye ayaan waxaan ku yidhi walaal i guurso waxaan u baahanahay maadaama aan heerkan joogo in aan reerkayga si aysan ii ogaan ii asturo oo walaalow ilaah baan ku dhashay xaaladan sida ii dhan. waxa uu iga jawaabay walaal aniga naag aan saan yeelay see u guursadaa aan guursan baaban saan yeelay iga raali noqo wuuna ka dhaqaaqay. qalbiga ayaa iga jabay. muddo 6 biloodana qolkayga aan deganaa kama soo bixin. reerkayga waxay dhaheen waa xanuunsan tahay sidaas ayaana layn Canada ah la igu gaday. waan ku soo baxay oo waxaan ku imid Canada maadaama xaaladeedii la bixin waayey ayaa waxaa la yidhi bal inay gabadha buufis bahaye qurbaha ha loo diro sidaas ayaana ku imid halkaana ku jooga nin dambana ma shukaansano ragga dhan waan ka baqaa. xamse wuxuu ku yidhi i aamin indhahayga fiiri totally ma ku khiyaamayo walaalkaa baan ahay saaxiibkaa baan ahay wax kastana laa ku noqonayo anaa garabkaaga ah. maxaa dhici doona wuxuu ku yidhi iska ilow wixii hore waxaan kaa ballan qaadayaa wax walba oo aad u baahan tahay inaan farta kaa saara xataa nolosheeda ha ku ahaatay. kalsooni tira badan ayay meesha isku daansadeen way wada cunteeyeen cunta afka la isu gelgeliyey muddo kadibna waxay tiri haye hadde dhinacaaga adiguna ii bilow. waayahay dhanka kale xamse waxay degan yihiin faamilkiisu sidaan hore idinkugu soo sheegayba Kampala magaalada Kampala oo ay hooyadiis iyo faamilkoodaba degan yihiin. waxaana sidoo kale isla Kampala degan gabadhii xamse loo ballan qaaday in loo guuriyo oo waxayba la degan tahay oo faamil ka mid tahay hooyadii dhashay xamse iyo gabadha uu guursan doonaba waxay wada degan yihiin Kampala. waxayna ku ballameen inay isguursadaan marka uu Canada kasoo laabto guurkoodana halkaa uu ka dhaco. gabadha xamse uu guursan doono ee reerkooda u hayaan waxay ahayd gabadh aad iyo aad ugu jeclaa oo yaraantoodii xataa ay isla soo koreen ilaa xadna ay isku kalsoonaayeen. xamse xaalad baa ku furan opportunityna wuu haystaa wuxuu degan yahay wuxuu joogaa Canada gabadh Africa joogta waxaan u malaynayaa in uusan jaani siin doonino wuxuu ku qabsan doonaa gabadhan qalbiga wanaagsan ee cureeji ah daacadana ugu warrantay uuna u carab laalaadiyey inuu guursan doono ayay u badantay bal aynu ogaano. waay sheekadu bilaab wuxuu ku yidhi aniga hooyada halkaas degan tahay faamilkayga halkaas degan yihiin weligii wax ma jeclaan ilmana iima joogaan keligii ayaan ahay waxaana doonayaa nolol dhammaystiran inaan qofkii aan la qaybsan lahaa inaan helo. waxay ku tiri xamsow waxa ku hoos jiifa waa bureeqo oo si weliba naxariis leh u fiirinaysa u daalacanaysa. waxay ku tiri waa kaa ballan qaadaya naftayda inaan kugu wareejiyo. xamse dhooshu ku qoslayaa waxba u qarsoon laakiin way soo bixi doon. xamse asagu marka gabadhan sina waa u rabaa oo gabadhan quruxda badan iyo magaalada uu degan yahay iyo qabowgan iyo waxaan wuxuu is leeyahay wallaahi gabadhan wallaahi yaa niyad iska leeyahay. kuleeshkii baa lagu laabtay shaqadii sidii baa laskugu fiicnaa saaxiib baa la noqday meel kastaa la isu raacay dhaqaalaha la wadaagay wax walbaa la wadaagay dhan walba waxaa la noqday laba qof oo laga qurbahan dee saaxiibana ka noqday haddana isjecel. dareen aad u qurux badan ayuu usoo bandhigay. waa nin af Soomaali badan waa nin af miishaara waa nin qurxaan ah. muddo sidiisaa loo ahaa 3 bilood ayaa dhammaatay. waxay maalin dambe kula ballantay waxay ku tiri xamsow kulankeeni maqaayada ugu dambeeyey maanta ii imow guriga igu imow maadaama aynu muddo aynaan kulmin aysi xog wareysano guurkeena iyo mustaqbalkeenaba aynu ka tashanay. cureesh waxay degan tahay guri 2 qol ah oo ayada u go-an oo keligeed u diyaarsan oo aad iyo aad u qurux badan. galabtii markii la gaaray xilligii ayuu guriga ugu yimid
irida marka soo galayna waxa uu kasoo galayba sidii wuxuu u dareemay in uu yimid gurigiisii oo kale. irida kasoo galayba waxaa ka hor yimid Cureji oo quruxdeeda iyo shacnigeeda iyo iftiinka ka baxaya aanina uusan caadi ahayn. xamse markiiba qalbiga wareegay, shaydaan baa markiiba ku shaqeeyey, wuxuuna ballan kula galay naftiisa inuusan caawa ka tegin inuu ceelka cabi maahan. ilaa asagu ma rabo guur, sida xaqiiqada ah wuxuu jecel yahay gabadhii joogtay Kampala. gabadhaan ma jecla oo waxa waaye dareen ka helitaan waa jiraa, laakiin jacayl uma qabo. okay waaya waxa dhacday gurigii markii uu soo galay ee halka asagu imaadeen ay wada sheekaysteen, fadhigii la wada tagay, cabitaan loo keenay, ilaa kaniiniba u diyaarsanaa jeebka ugu jiray buu cabitaanka ugu riday. cabitaankii markuu kaniiniga ugu riday, cabitaankii la cabay, gabadhi waa suxud wuu ka shaqaystay. hadda habeenkiina meeshiiba la seexday totally. waaya subaxdii ay soo kacday, xamse maxaa igu samaysay? anigaba waan isilaaway, cabitaan ayaa cabi, labadeennana waan isilownay. mar labaad ayaa gabadhii qalbigeedii la jabiyey. waxay ku tiri xamsow, khalad ayaa samaysay, si xun ayaana ii gashay, ee walaalow i guurso. wuxuu ku yidhi run ahaantii ma ku guursan karo, gabadhaydina Afrika ayay joogtaa, faamilkayga ayay la degan tahay, hooyadii ayayna haysaa, mana awoodo inaan guursado. iga raali noqo. sidii ayuu nooga tegay. Cureji siday ii sheegtay, hadda waxay la nooshahay murugada iyo xanuunkii, dareenkii iyo dhibaatadii kaamarsiiyey ayay la nooshahay. run ahaantii markay sheekada ila wadaagaysay Cureji, aad iyo aad ayaan u xanuunsanay. waxaana sheekadan idinkula soo wadaagay maadaama maanta waxa weeye qurba la joogo, dadka intooda badan ay guryo iska haystaan, nolol iska haystaan, shaydaanna u dhexeeyo laga faa'iidaysan. gabaray haddaad guri kaligaa degan tahay, faamilkaaga la deg, ehelkaaga la deg, walaalaha la deg. marnaba ha ogolaan in kaligaa meel cidla degtid. labadii qof oo dhalinyaro isla joogtaba shaydaan baa isdhexeeya. marka laba qof oo aan isqabin, oo aan waxba isu ahayn, oo aan waxba iska gelin, inay isu imaadaan, guri wada degaan, guri isla galaan, isla sheekaystaan, shaydaan baa ku saddexeeya ah oo halkaas iska faa'iidaysanay. marka cibri qaadashana way tahay sheekada tani. sida kale markii loo fiiriyana run ahaantii waa sheeko muruga badan. gabadhi hadda 2 jeer ayaa qalbiga laga jabiyey, 2 jeerna way sinaysatay, 2 jeerna waxa waaye way khasaartay. nolosheedana hadda waxay inaan guursan doono u malayn mayo. dhibka inta tira leeg ayaa soo gaaray, aad ayaan uga xumaay runtii. waa gabar kanaal ku xiran oo channelka daawata, waxay ku tiri sheekadan la wadaag, laakiin contactigayga cidna la wadaag. run ahaantii gabadhaas aad baan uga xumahay dhibka soo gaaray. waxaana leeyahay walaal ilaahay samri iimaana kaas iyo rag xun baa ku helay, 2 qof xun baa ku helay. dadku raggaas ma wada ahan. waxay igu tiri sidoo kale ballan iyo axdi wax nafteeda kula galay inaan nin Soomaali guursan. ana waxaan leeyahay marka walaalay, raggu ma wada xuma, labada ugu xuma hadday kugu soo aadameen. waxaan hubaa rag wanaagsan in ay jiraan. ilaahay wax kaaga rajaynaya in qalbiga kuu wanaajiyo, ilaahay inuu qalbiga kuu qaboojiyo. runtii aad iyo aad baan murugada kula qaybsanayaa. aniga iyo asxaabta inta ku jira meesha wax ku leenahay, ilaahay qalbiga ku dhayo, ilaahay ha ku caafiyo ayaan leenahay. runtii waa musiibo waa runtii. waxayna fududaynaysaa qof kasta oo qurbaha jooga ama meel qurbaha imaada oo kaliya guri dega oo noloshiisa ugu antay oo shaqaysta, dhibkaas uu soo gaaray hadduusan is ilaalin oo ilaahay ku xirnay. aad iyo aad baan idin salaamaya. sheekada halkaas kusoo gabagabeynaya. gabadhaasna commentiga way akhrinta insha Allah wixii aad kula talan lahaydeen commentiga sectionka nagula wadaag. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. nooli kulante.